بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كسر دواد ولا ليال معهد كيني معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية waxaad ogtihiin in dhawaan bixamdillahi caza wajal aynu saarnay dufcaddii saddexaad ee qaybta ka qalin bedelatay ama ka qalin jabisay tacliinta luqadda carabiga ama dabloom alluga alcarabiya ilaahay mahadi subxaana watacaala maxadku waxa uu idin furaya hadda dufcaddii ku xigtay qoraalkeedii tasjiilkeedii qaybta barashada afka af carabiga waxaa ilaahay subxaana watacaala mahadi ah in qaybtan ama dufcaddan cusub aynu qaadan doono insha allahu caza wajal laba qodob ay dheeraan doonto dufcaadkii hore ee ka qalin bedeshay ama ka qalin jabiyey qaybta luqadda carabiga waa qodobka ku saabsan qodobka koobaad waa qodobka muqararaadka ama maadooyinka la dhigan doono oo runtii noqon doona biidn illahi caza wajal kuwa runtii aada looga shaqeeyey faa'iidadeeda iyo waxtarkeeduna aada ugu badnaan doono maadooyin cusubna aan kusoo darnay sida maadada naxwaha oo runtii aada iyo aada ardaydu ay u codsadeen laakiin alxamdulillah hadda un jaaniskeedii fursadeedii muqararaadkeedii ay noo suurta gashay qodobka labaad waa muddada ay dhigan doonaan oo ka koobnaan doonta muddadii ardaydii hore ay wax ku dhigteen haddii ardaydii hore qaarkood sanad uu la gaadhay dibloomku qaarkood sanad iyo 3 bilood ay qaateen oo 5 semester ay dhigteen waxaan isku dayi doonaa hadda biidin ilahi caza wajal sanad wax ka yar 10 bilood ugu badnaan inay ku dhameeyaan insha allahu caza wajal maxadku ama tacliinta luqadda carabiga ee maxadka maxad almacaarif laba siyood wax loo bartaa qaab ah wax weeyaan fasalladii iyo galaasyadii caadiga ahaa iyo qaab ah in online wax lagu dhigto labada qayboodba waa idinku soo dhaweynaynaa tasjiilka iyo diiwaangelintu waxay furmi doontaa biidn illahi caza wajal maanta laga bilaabo ardayda fasallada caadiga dhigan doontana laba waqti ayaa ay wax kala dhigan doonaan qofba jaaniska iyo waqtiga uu hayo arday maalinle u dhigan doonta oo maalin kasta soo geli doonta maqribka marka laga baxo salaada maqrib biidn illahi caza wajal iyo arday waxa weeyaan u dhigan doonta usbuucley ah oo iman doonta maalinka khamiista iyo maalinka jimcaha maxadku inama iyo hablo intaba waa lagu dhigtaa oo waa dhigtaan biidn illahi caza wajal kusoo dhawaada maxadkiina maxad almacaarif barta afka af carabigiina ee runtii albaabka u ah laga gelayo iyo iridda waxa weeyaan looga tallaabayo fahamka shareecada iyo diinteena islaamka ee suban baarak allahu fiikum wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wasaxbihi ajmaciin